habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhageysanaysay waa mar kale iyo barnaamijkeenu wararka iyo caawa qodobadan idinku hayana waxa kamid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo mirdhow ka fadhiisanaya shirkii laga hadlayay madaxbannaanida Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo shir degdeg ah hadda ku galay dalka Djibouti dawladda Israa'iil oo shaacisay warqad ay ugu hiilisay Soomaaliland sanadadii 1980 markii dawladda Soomaaliya ay duqeynaysay Hargeysa dhalinyaro reer Boorama oo si weyn u taageeray Soomaaliland qadiyadeeda madaxbannaanida iyo ictiraafka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isla caawa la kulmaya dhigiisa Erdogan oo ay xulafo dhow oo siyaasadeed yihiin habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhageysanaysay waa mar kale iyo barnaamijkeenu wararka iyo caawa qodobadan idinku hayana waxa kamid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo mirdhow ka fadhiisanaya shirkii laga hadlayay madaxbannaanida Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo shir degdeg ah hadda ku galay dalka Djibouti dawladda Israa'iil oo shaacisay warqad ay ugu hiilisay Soomaaliland sanadadii 1980 markii dawladda Soomaaliya ay duqeynaysay Hargeysa dhalinyaro reer Boorama oo si weyn u taageeray Soomaaliland qadiyadeeda madaxbannaanida iyo ictiraafka daawadayaal intaasi waxay ahayd qodobadii ugu doorka waaweyn la wararkan caawadin hayno halkan anaga daawanaysana waa Kennedy Media anigoo abwaan Kennedy barnaamijkeedii la socodsiinaya haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa goordhoweyd shir degdeg ah ku galay dalka Djibouti shirkaas oo laga arrinsanayay ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ictiraaftay dawladda Israa'iil labada madaxweyne waxyaabaha ay ka wada hadlayaan waxa kamid ah in Soomaaliland laga hortago ictiraafkeeda dagaal diblomaasiyadeed dawladda Djibouti arrimaha ay ka dagaalamayso carqabada ku ah hadii Soomaaliland la ictiraafo waxa kamid ah in dadka 120 milyan ee shacabka reer Itoobiya oo ku xidhan dekada dalka Djibouti hadii Soomaaliland la aqoonsado ay dekada Berbera kala soo degayaan maciishada iyo waxa dalka Itoobiya u baahan yahay waxa kale oo kamid ah qodobada ay ka dagaalamayso ama ay ka duuleyso in saldhigyada military ee caalamka ee ku yaala dalka yar ee Djibouti in loo soo rarayo Soomaaliland golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mirdhow shir degdeg ah galaya shirka oo laga arrinsanayo arrinta ictiraafka iyo madaxbannaanida qadiyadda Soomaaliland shirkan ayaa waxa dalbatay dawladda federaalka ee Soomaaliya golaha ammaanka oo ka kooban 15 xubnood ayaa 5 xubnood waxay yihiin wadamada joogtada ah ee awoodda veto power-ka leh wadamadaas oo kala ah Mareykanka, China, Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska tobanka kalena waa wadamo aan joogto ahayn oo 10kii sanaba hal mar la bedelo daawadayaal shirkaasi waa shir caalamka oo dhan indhaha ku hayo goordhowna la wada sugayo bal waxa ka soo baxa dawladda Israa'iil ayaa goordhoweyd warqad ku baahisay baraha bulshada warqadaas oo cadeynaysa xilligii General Maxamed Siyaad Barre uu dadka shacabka ee reer Soomaaliland duqeynayay ay caalamka oo dhan ka aamuseen laakiin ay Israa'iil u hiilisay waqtigaas oo dawladdii Maxamed Siyaad Barre ay si ba'an u burburisay magaalada Hargeysa ee hadda ah caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland una leysay dadka shacabka ee reer Soomaaliland dhalinyaro reer Soomaaliland oo ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta si weyn u taageeray qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland kuwaas oo ku baaqay in amniga si weyn loo ilaaliyo Soomaaliland madaxbannaanideeda iyo ictiraafkeedana soo dhaweeyay sheegayna in 34 sanadood kadib Soomaaliland inay aqoonsi yeeshay ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin hadii ay yihiin reer Awdal madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa sida la sheegayo waxay ka wada hadlayaan arrintan ictiraafka Soomaaliland iyadoo la sheegayo madaxweynaha Turkigu inuu ku xidhay heshiis cusub inuu la saxeexdo Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo la og yahay sanadkii hore inay heshiis cusub wada galeen heshiiskaas oo ahaa uu ka faa'iideysto kheyraadka badda iyo kheyraadka dalka Soomaaliya heshiiskan cusub ee hadda la sheegayo ayaa waxa uu noqonayaa isaguna sidii Turkigu kheyraadka Soomaaliya uga faa'iideysan lahaa kadibna uu taageeri lahaa Soomaaliya ugana gali lahaa safka hore wadamada dawladda Soomaaliland ictiraafkeeda la dagaalamaya ama ka soo horjeeda daawadayaal wararkeena caawa inta ay ku kooban yihiin isaan horabadii ku sheegaan waa abwaan Kennedy barnaamijkeedii la socodsiinaya halkan anaga daawanaysana waa Kennedy Media fadlan hadii muuqaalku ku soo gaaro share gareeyo YouTube kana subscribe ta saar intaynu warkan war la mid ah sugu iman doono nabaday